waxa qof walba ishiisa u macallina warbaahinta sharafta leh waa soo dhaweynaynaa waxaanuna muuqaal iyo hadalba isu raacinaynaa caawa in sidii lagu yaqiinay xisbiga kulmiye oo halka ay madaxdiisii ugu sarreysay ku badbadan tahay waxa hawlo farsamo oo dimuqraadiyaddu ogoshahay in laga doodo oo wixii khilaafka ra'yigu wax dambiya uu leeyahay ma jiro ra'yiga la isku khilaafi karo baa caawa la soo ururiyey halkaa lagu wada leeyahay ishiina idiin macallina waxaanuna ku dhawaaqaynaa guulihii aanu ku dhawaaqi jiray marka muddo laga sheekaysto yar oo jariidada nafteedu iibkeeda hesho oo la odhan jiray lagu kala tegiyey fooddaa laysla galayey foodi ma jirto fooddaa ma aha waa mabaadi iyo aidolojiyad iyo wax sixitaan waxa la isku hayaa cadaawad shakhsiyihi dhexdeeda ma jirto waxaanu faqaa nidaam baa nahay dad soo wada halgamay isku xidhan isku mabda'a oo aan kala tegi karin oo aan furfurmi karin baanu nahay unitiga iyaguna mar alla markuu khatar galo oo loo yaabo hadalku bataba markaasuu sii xoogsadaa caawa waxaa halka jooga madaxdii xisbiga iyo dadkii halyeeyadii hore u soo halgamay oo dhammi waa ku dhan yihiin guddidii khayrka qabtay oo sida fiican u shaqaysay oo intii tabarteeda waajibkeeduna ahaa oo arrinkaa inay sidii ugu habboon oo ay u fududayn lahayd turxaan bixintii samaysay turxaantiin hadda waa arkaysaan oo turxaan taagani ma jirto albaabkay ka baxday wax turxaan oo soo hadhay ma jiro hawlaha waxaan markaa ku wareejinayaa xogayaha sida fiican isagoo mahadsan u shaqeeyey oo xalay si loo ogaado ilaa habeenbar baanu ku gaadhnay kuwii ta'wiilsa samayn jiray ta'wiil bay sameeyeenoo xalay ugu dareeray oo fedhis kala daaleen baa la yidhi waxna kama jirin waa beenowday caawaanu joognaa maantaanu joognaa shaqaanu wadnay shaqo xisbigu leeyahay baa laga shaqaynaye cid fooda isla gashay iyo cid isu quudhaa inay isfara saarto midna laguma jiro waxaan markaa guushaa baan ugu bushaaraynaynaa inta wanaagga jecel inta xisbiga jecel inta horumarka dalku inuu hore u maro jecelba waxaan ugu bushaaraynaynaa guul la gaadhay oo weliba la taaban karo oo mas-uuliintii ugu sarraysay mar dhaweyto xisbiga iyo dawladdaba ay halka kaga dhawaaqayaan annaga waxaan ku soo dhawaynayaa xildhibaan cali si uu qodobadii heshiiska lagu gaadhay uu akhriyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ummadda reer Somaliland iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye gudaha dibadba halkan ugu bushaaraynaynaa in hawshiina loo saaray ee turxaan saarka ahayd sida gudoomiyuhu sheegay aanu turxaantii saarnay dhammaan xisbiguna uu go'aamadan iyo soo jeedimahan isla waafaqay waxaan idin akhriyo doonaa go'aamadii ku socota gudoomiyaha xisbiga kulmiye ku socota madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland og madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ujeedo go'aamada turxaan bixinta xisbiga kulmiye mudanayaal sida aad la socotaan waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland u magacaabay guddi turxaan bixisa khilaafka soo kala dhexgalay madaxda sare xisbiga kulmiye kaasoo saameyn ku yeeshay qabsoomidda shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye guddidaas oo ka koobnay 10 xubnood waxay si mug iyo miisaan leh uga hawlgaleen shaqadii loo igmaday guddidu siday u daristo baaxadda khilaafka iyo waxa lagu kala cabanayo waxay kulamo gooni ah la yeelatay dhinacyadii wax kala tirsanayay iyadoo dhinac walba la yeelatay 3 kulan oo gaar ah si khilaafka loo fududeeyo waxay guddidu kulamo shakhsi ah la yeelatay xubnaha xisbiga ee kala cabanayay kaas oo ay u kala dab qaadaysay shuttle diplomacy kulankaas gaargaarka ah kadib waxay guddidu si toos ah isu soo hor fadhiisay dhinacyadii wax kala tirsanayay kuwaasoo dhinac waliba ku soo bandhigay wixii uu tabanayay si furan oo saraaxad leh haddaba guddidu iyada oo tixgelinaysa wadajirka xisbiga kana duulaysa sidii shirweynaha xisbigu ugu qabsoomi lahaa waqtigii loo cayimay iyadoo dhammaan xisbigu mid yahay waxay guddidu markii ay dhageysatay doodihii dhinacyada isla markaana ay si baaxad leh u daristay
nuxurka khilaafku ku salaysan yahay waxay soo saartay go'aamadan. kow waxa awoodda qabanqaabada iyo diyaarinta shirka iska leh guddida qabanqaabada shirweynaha waxaana guddidaas mustambeed u noqonaya hoggaanka xisbiga. laba iyada oo la raacayo dastuurka xisbiga waxay guddida fulintu ansixinaysaa 4 xubnood ee lagu soo daray guddida qabanqaabada. saddex haddii loo baahdo wax ka beddelka dastuurka xisbiga waxa awoodda diyaarinta wax ka beddelka yeelanaya guddida fulinta waxaanay soo jeedintooda u gudbinayaan guddida qabanqaabada oo iyaduna u gudbin doonto shirweynaha. afar iyada oo la dhowrayo wadajirka xisbiga waxay guddidu go'aamisay in dhammaan xubnaha hoggaanka oo kala ah guddoomiyaha afartiisa ku-xigeen iyo xogayaha guud sidooda loo daayo oo aan cidi kula tartamin isla markaana shirweynaha dib loogu soo doorto si loo mariyo sharciyadda. shan in cabdicasiis maxamed samaale uu ka mid noqdo guddida fulinta ee xisbiga. lix guddida fulinta ee cusub waxaa soo magacaabaya hoggaanka xisbiga oo wada jira waxaanay kala tashanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. toddoba saddexda urur ee kala ah dalsan damal iyo ummadda waa in la sii daayo liisaska xubnaha golayaashooda dhexe si ay uga qayb galaan shirweynaha xisbiga ee soo socda. saddexda xubnood hadalkii bay ku jireen saddexda ururo kuwii kale aan hadalka ku jirin oo kumaanaan soo darin. sideed sida uu dhigayo sharciga xisbigu ergooyinka shirweynuhu waxay ka imanayaan gobollada iyo degmooyinka waxaana soo xulaya madaxda xisbiga ee degmooyinka iyo gobollada iyo mas'uuliyiinta heer qaran ee xisbiga u metelaya gobollada iyo degmooyinkaas. sagaal soo xulista xubnaha golaha dhexe ee lagu dooran doono shirweynaha waxaa lagu soo xulayaa sida ku cad qodobka 8aad. toban guddida turxaan bixinta khilaafka xisbigu waxay dusha kala soconaysaa fulinta go'aamada ilaa inta shirku qabsoomayo. billahi tawfiiq. assalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى مهضي waxaan marka hore aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan akhyaarta iyo maqaawirtii xisbiga kulmiye caawa halka fadhiya dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana soo dhaweynaya waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa guddida turxaan bixinta oo dadaal badan sameeyey si waxyaalaha ama sharci ha noqoto ama aragti kala duwan la isku qabta ee xisbiga soo dhex in badan isku hawlay inay soo ururiyaan oo soo mideeyaan waxaan doonayaa marka sheego xisbi siyaasi ah oo baaxadda leh oo dimuqraadi ah inta kulmiye dadku ay ka warwaraanayaan kulmiye uu khilaaf badan yahay uu saystaayo kala dhaqaaqaya waxay ma aha boqolkiiba 10 xanafta dimuqraadiyaddu ay leedahay waa haddii dad kala raay duwan oo raaygoodana mideen doonaya inay inta iyo in ka badan buuqooda iyo xasaasiyadu noqoto waa waajib marka dadku xor yahay fikradu cabirayaan malaha waxaanu kaga dayanaa dimuqraadiyadda Mareykanka doorashadii u dambeysay waa arkaysan wixii ka dhacay markii Clinton iyo ay saysteen gabadha Clinton iyo ninka la yiraahdo Obama haddana wasiir iyo madaxweyne soo noqday xisbi kasta oo dimuqraadiya hadda aad u dhageysato dood adag ayaa ka dhaxdhacda guushiisa iyo bisaylkiisa iyo waay argiisu wuxuu ku jiraa sidoo rayga u madeeyo oo meel wada dhaqaaqo waxa marag madoona 10 sano kulmiye uu jiray dhowr 10 sano uu jiray mar walba hawsha soo marta inuu ku dhamaysto midayn iyo meel kala duwan caawana waxaanu soo meerinay oo guul labaad kulmiye u ah inuu ku midoobay sidii uu qabsan lahaa shirkiisa iyo mustaqbalkiisa soo hirgalay inuu ku midoobay caawana guul labaad oo isku raaxsay waxaan doonayaa inaan ka cadeeyo guddida turxaan bixinta qodobada ay soo jeedisay sideeda ayuu xisbigu u qaadanayaa oo uu ku hawlgelinayna marka horena markaan idin sharaxo ma jirin xisbiga kulmiye kooxo kala mabda ah oo iska horyimid ma jirin qaar beeraysan oo iska horyimid ma jirin dad ashkhaas suncab oo iska horyimid marka shirweynaha la qabanayo dastuurka xisbiga ma halkaas misaas inuu ka yeelaa misaas inuu ka yeelaa
qolada guddiiduna halka ay ka caawiyeen naga caawiyo waxa weeye war waxyaalaha saamir ku jira wixii u bay noola eegan dastuurka iyo shirweynaha sidaynu u hagaajinay halka u gaarsiinay qoladii hoggaanku waa idin mahadnaqaynaa dhammaanteed aad tirahdeen 5 sano soo socdo waan dooranay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa annagana waxaana laga rabaa mas'uuliyadeedii iyo dee abaalka aan noo gasheen ilaa rag badan oo hal la jiray oo meel ku tartamay hadda isla garateen oo tiraan 5 dambayna wada war inagana xil baan saaran qoladii hoggaanka hayday weyn baan saaran oo wax naga daayay hawlo badan taana waa idinka mahadnaqaynaa cidii nooga hadhay cidii soo qabanqaabisaba aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaan leeyahay cidii Soomaaliland nacab ama kulmiye nacab kana cidii Soomaaliland jecel kulmiye jecelayna waa inoo guriye farxad waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga xubnaha xisbiga ee heer kasta leh iyo madaxweynaha oo isaga laftiisu gacan weyn ka geystay si arinta shirku hore ugu qabsan lahayd waxay noo balana madasha 13 iyo guul xisbiga kulmiye wassalaamu calaykum الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدنيال iyo marwooyin bahweynta xisbiga kulmiye ka fadhida iyo saxaafadii hor taagan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam ka bacdi waxaan runtii aad iyo aad markii waad ugu mahadnaqayaa guddiga loo xil saaray inay turxaan saarto khilaafka yar ama aaraada lagu kala duwanaa sidoo uu qabsoomi lahaa shirweynihii xisbiga kulmiye ee runtii muddada bisha ah ku hawlanayd aad iyo aadna hawl badan ka gaadhay marka kuwaad waxaan leeyahay jasaakumullahu khayr baan leeyahay hawsha soo gasheen aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa marka labaad Soomaaliya wax ku mahmaadaha laba walaalo oo aday wax isla garan waayaan walaakooda saddexaad ayaa la eega arinta intaan u baxay wax horta dhibaato ma jirto iyadoo dadku yool iyo ujeeddo leeyahay iyo haddana yoolkaas sidii loo gaadhayo aragtiyan lagu kala duwanaadaa aragti u baxay wax colaado iyo cadaawada oo madaxda xisbiga kulmiye dhextaalay ma jirin taasaan waadaynaa taageerada xisbiga kulmiye dibadii gudmeel ay joogaan inay jiraan wax colaada oo shakhsiya ay ahaydun aragti sida shirku u qabsoomayo iyadoo min walba wanaagiisa iyo shirkaas sidoo qabsoomayo ka fikirayo ayuu bahayd tiina runtii walaahayaga maanta hawsha loo xisaaray madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo xil saaray si wanaagsan u soo dhameeyeen hadal badan oo dhamaayo gudoomiyaha hadalka intiis badan dhameeyay waxaan leeyahay waxa ay soo saareen guddiga loo xisaaray hawshani turxaan bixintu waan qaadanay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh